kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xusuusu joog oo asbuuc waliba aad ka daawan doontaan channelka xusuusu joog media. barnaamijka oo ahaan doona barnaamij asbuucla ah waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo gudbino taariikhda dadkii saameynta ku lahaa dalkeena hooyo hadday nool yihiin iyo hadday yihiin kuwii dhintay. haddii aad tahay qof ku cusub channelka, saar subscribe oo riix gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela waxaan damacsannahay inaan u soo gudbino jiilka nala nool iyo kuwa naga dambeeya. waxaan idin leenahay nala soco. anigu waa Dalmar Cabdiqaadir Daacad. dalka iyo dadka calanka ayaan caashaqsanahay. halhays waxay u ahayd Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Xirsi Cabdullaahi Qorshe. waxa uu ku dhashay magaalada Mooshi ee dalka Tansaaniya sanadkii 1924. Cabdullaahi intii uu kuray ka noqday 7 sano jirkiisii waxa uu ku noolaa isla magaalada Mooshi. kadib waxaa loo wareejiyay magaalada Cadan ee wadanka Yemen. halkaasi uu ku barbaaray dugsigana uu ka galay. Cabdullaahi ayaa wuxuu in badan ku fakarayay sidii uu ku fahmi lahaa kuna dhadhansan lahaa qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay fanka iyo sidii uu u fahmi lahaa muusiga dadka reer Cadan. sanadkii 1941 ayuu ku hamiyay Cabdullaahi inuu wax ka bedeli karo fanka Soomaaliyeed iyo sidii uu ugu soo dari lahaa qaybaha muusiga ama kabanka. waxaana ay ahayd markii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. wuxuuna bilaabay daawashada aflaanta qaybaheeda kala duwan iyo sidii uu u fahmi lahaa qaabka codka loogu dhawaaqo isagoo xilligaasi ku jiray dugsiga dhexe ee magaalada Cadan. sanadkii 1945 ayuu yimid magaalada Hargeysa ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo markaasi ku jirtay gacantii maxmiyadii Ingiriiska. waxa uu maamulkii markaasi jiray uu ka noqday karaani ama shaqaale. isla xilligaasi ayay ahayd markii ay bilowdeen heesihii qaraamiga ahaa ee balwo oo sida aadka looga jeclaa gobolada waqooyi ee Soomaaliya. Cabdullaahi ayaa isku dayay bal inuu bilaabo garaacista kabanka casriga ah oo uu ku soo arkay magaaladii uu ku barbaaray ee Cadan. Cabdullaahi Qorshe ayaa waxaa kabankiisii ugu horeeyay uu gatay sanadkii 1948 wuxuuna isla sanadkaasi u curiyay heestiisii ugu horeeyay ee diiwaanka baxda maansada gashay. heestaasi oo la magac baxday Heelo. heestaasi waxaa ka mid ahaa erayadeedii ka kacay taasi oo shacabka Soomaaliyeed ugu baraarujinayay in gobolada waqooyi iyo koonfurta iyo goboladii kaleba ee ku jiray gacmaha gumaysiga ay ka hor yimaadaan bilaabaan inay raadiyaan xornimo dadka Soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin. marka Cabdullaahi Qorshe la xuso isla markaasba waxaad xasuusanaysaa Xuseen Faarax oo ahaa ninkii fanka ay sida weyn uga wada shaqeeyeen. waxaana labada nin ay muujiyeen wax iskaashiga fanka uu leeyahay. waxaa dhici jirtay marka Xuseen Faarax uu hees curiyo in codka iyo muusiga uu saaro Cabdullaahi Qorshe. Xuseen Faarax ayaa sanadkii 1955 5 sano ka hor xornimadii dalka waxa uu curiyay heestii qiimaha badneed oo uu curiyay astaanta iyo calanka qiimaha uu leeyahay taasoo noqotay astaanta uu leeyahay calankeena Soomaaliya. waana heestii miraheeda ay ka mid ahaayeen Cabdullaahi Qorshe wuxuu ahaa nin fankiisa u daadajiyay u heelinta halganka iyo gobonimada Soomaaliyeed, Afrika iyo caalamkaba. sanadkii 1961 waxa uu tiriyay heestii caanka ahayd ee lagu magacaabi jiray Patrice Lumumba. Patrice Lumumba waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii wadanka Congo waxaana shirqool lagu dilay 17 Janaayo sanadii 1961. dilkaasi ayaana dadweynaha Afrika si weyn uga argagaxeen. Cabdullaahi Qorshe ayaana wuxuu curiyay heestii caanka ahayd ee miraheeda ay ka mid ahaayeen Lumumba ma noola mana dhiman labada midna ha u malaynin. Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Xirsi ma ahayn oo kaliya nin fanaan ah oo heesaha qaada ee wuxuu ahaa abwaan heesaha curiya. sida aan ku soo xusnay heesihii uu curiyay Cabdullaahi Qorshe ayaa halgan dheer u soo galay sidii ummadda Soomaaliyeed maalin ay u heli lahaayeen calan ay ku midaysan yihiin, ciid wada deeqda iyo dad wadaniyiin ah daacad u ah dalkooda iyo dadkooda, iyo sidii Soomaali uga tagi lahayd qabiilka oo daashaday una diiday inay higsadaan halkii asaagoodu maray. marka aad tiraahdo waan ka sheekeynayaa Cabdullaahi Qorshe waxa uu leeyahay taariikh fog taasi oo ay adag tahay in waraaqadii qalin lagu koobo. Cabdullaahi Qorshe ayaa dunida ku noolaa muddo 73 sano ah waxaana 50 sano oo kamid ah oo ku qaatay fanka dhexdiisa asagoo mar qura aan ku mashquulin inuu curiyo heesaha jacaylka ama kuwa kale kaliya. wuxuu mar waliba ku fakiri jiray siduu ku curin lahaa heesa wadani ah kuwaasi oo dalka iyo dadkaba dhaxalgal u ah sida aan hore ugu soo xusnay heesihii aan soo aragnay. Cabdullaahi ayaa noloshiisu dunidu waxa ay ku soo biirtay asagoo dalkiisa hooyo oo gacanta ugu jiro
gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska, kuwaasi oo kala qaybiyey shantii Soomaaliyeed. waxa uu maanka ku hayay sidii dadka Soomaaliyeed maalin ay u lahaayeen dawlad ka wada dhaxaysa. Cabdulaahi Qorshe ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ee dawladii kacaanka waxa uu ku noolaa magaalada Muqdisho. golaha murtida iyo madadaalada ayuu wuxuu ka ahaa qof lagu maamuuso. Cabdulaahi Qorshe waxa uu dalka soo joogay, dalka oo gaaray xornimo, halgan dheer loo soo maray, dhiig badanna uu ku daatay. sidoo kale Cabdulaahi Qorshe ayaa waxa uu joogay markii dadka Soomaaliyeed ay qarankii dumiyeen, halka hoosena loo laalaadiyay qarankii ka dhaxeeyay ummadda Soomaaliyeed oo mar noqday Afrika mid ka dhex muuqda. sanadkii 1997 dabayaaqadiisii Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Cabdulaahi Qorshe inta uusan gelin isbitaalkii uu ku geeriyoon lahaa 5 casho ka hor 27 bishii September sanadii 1997 ayaa lagu casuumay furitaanka wargeyska Kasmo ee ka soo baxay magaalada Muqdisho. abwaanka ayaa markii lagu soo wargeliyay loona sheegay inuu yimaado xafladda ayaa waxa uu ku hadlay hadal qiiro lahaa. waxa uu yiri, waxaan 25 bishan la balansanahay dhakhtar, waxaan filayaa inaan aali doono isbitaalka maalinta 27 September. iiga cudurdaar inaanan imaan karin xafladda oo aan xanuunsanayo. hanbalyo magaciiga dheh xafladda, waan idin salaamayaa, waxaana idinka codsanayaa inaad hirgelisaan oo uusan joogsan Kasmo, yuusan joogsan Kasmo, ayuu ku dardaarmay Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Cabdulaahi Qorshe. Cabdulaahi Qorshe ayaa ifka ka tegay dhinaciisana dhulka la dhigay 22 bishii Oktoobar sanadii 1997. Cabdulaahi ayaana goobjoog ahaa dalku markuu xorriyad qaatay, markuu xorriyad raadinayay iyo markii Soomaalidu gacmahooda isku gumaadeen. asbuuca ay soo xaadirtay geeridiisa waxa uu diyaariyay hees uu ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed uu gaarsiiyo, taasi oo ahayd hees uu ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ay ka kacaan kana gudbaan qabiilka iyo dhibaatada dhan walba ka gubay, qarankoodiina baabi'iyay. heestaasi ayuu kala dardaarmay inuu qaado ummadana u gudbiyo Axmed Naaji Sacad. dharaartii 22 Oktoobar sanadii 1997 Soomaali waxa ay weysay haliyay ku caanbaxay guubaabada iyo dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed. dhammaan waxaa hoos loo dhigay maalintaasi fankii Soomaaliya. Qorshe waxa uu lahaa asxaab badan, kuwaasi oo mid waliba uu ka sheekeynayay maalintaasi. Cabdulaahi wuxuu ahaa qofina isku madayi kara inuu koobo, laakiin qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa subaxaasi ka hadlay qabriga dushiisa ayagoo ka jawaabayay xaaladihii Cabdulaahi uu ku sugnaa. Yuusuf Xaaji Aadan waxa uu yiri, waxaan isbaranay sanadii 1957 Cabdulaahi Qorshe oo idaacadda Hargeysa ayaan ka shaqo bilaabay. lama soo koobi karo waxa uu ku soo kordhiyay fanka Soomaaliyeed. waa nin soo saaray heese qaraami ah. Cabdulaahi nin kaliya ma uusan ahayn ee waxa uu ahaa dhowr qof. haddii maanta aan dawlad ahaan oo calan ii taagnaan lahaa, calanka waa naaqusin lahaa Cabdulaahi dartii, ayuu yiri Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ahaa asxaabtiisa. sidoo kale Maxamed Salabaan Tubeec wuxuu yiri, Cabdulaahi Qorshe waan la fariistay, weligay waan jeclaa inta dalka aanan imaanin oo Itoobiya aan jiray. Cabdulaahi Qorshe heesihiisa ayaan dhageysan jiray. Cabdulaahi maraan la fariistay oo aan la sheekaystay ayaan ku yiri, Cabdulaahiyow miyaadan heesa caashaqa weligaa tirin, miyaadan weligaa iyo allaha aadan wax caashaqin. Cabdulaahi ayaa iigu jawaabay 1963 mar aan ku sugnayn magaalada Burco, waxaan caashaqsanahay dalka iyo dadka iyo calanka. anigu calanka ayaan caashaqsanahay. haddii maanta Soomaali urursan oo dhisan mid kaliya ah ay jirto, calanka Soomaaliya hoos ayaa loo dhigi lahaa. haddana Cabdulaahi Qorshe naxariistii janno allaha siiyo, ayuu yiri Maxamed Salabaan Tubeec. sidoo kale Seynab Xaaji Cali Baxsan ayaa ka sheekaysay Cabdulaahi Qorshe. Cabdulaahi Qorshe waxaan isla ahayn reer Cadan markii laga keenay dalka Tanzania. fan ahaan waxaan bartay markii aan imid magaalada Hargeysa. wuxuu i weydiiyey wixii ugu horeeyay ee dadkayga ii iibiyeen. waxaan ugu jawaabay, buug iyo qalin ayaa la ii iibiyey. wuxuu igu yiri, kaban iyo riishaba iibso. sidoo kale Cabdi Xasan Xudeyfi wax ka yiri geerida ku timid Cabdulaahi Qorshe. waxa uu ahaa nin wadani ah oo aan istustus iyo isyaalyaal aysan ka ahayn. sidoo kale Cabdulla Raaga Daraawiish oo Muqdisho aad looga yaqaanay ayaa yiri, waxa uu ahaa taalo qaran oo la xasuusan doono, qaran iyo fan iyo halgan ayna loodin waayeen jiisnimo, jiro, duqow iyo qaxootinimo. intaas ay noo joogto qaybtii koowaad ee barnaamijkeena Xusuusu Joog oo asbuucan aan ku soo qaadanay taariikh nololeedka Allah u naxariiste Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Xirsi Cabdulaahi Qorshe. waa inoo toddobaadka dambe. haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar oo ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeyo ee hela waxa aan soo bandhigno. waxaan isku dayi doonaa soo gudbinta xusuusaha kuwa qarsoon iyo kuwa joogaba.